ولا ليال مركا أوه الرئيس إلهي بقى مهد إسكاله إله وين واحدك أيام مهد إسكاله مهد إذي الكيدي لما أنت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي عبسدي سين صدر دار ميدا نولشين وحي معنا كل هذا هاي geeride nuna ay ku wanaagsanaan doontaa ilaahay idankii ilaahayna inuu ka cabsano aniga idin la hadlayay idinkaba waxaynu isku baraarujinaynaa ilaahay cabsidiisa inaynu ku dadaalno qofku rabbigii ka cabsado oo ilaahay ka xishoodo oo rabbigii iska eego inagu waqti waxaynu joognaa dadku diintii iyo dunyadii ilaahay wuxuu ugu talagalay diintu adduunka inay hogaamiso laakiin maanta waxaynu joognaa waqti adduunka iyo hawadu diinta ay hogaaminayaan oo ka horeeyaan waxa lagu badbaadayaa qofku ilaahay inuu ka cabsado waxaynu joognaa adduun qofku bani aadamka iska eegayo xaqiisa ilaahay xaqi aanu iska eegaynin bani aadam uu sharaf ka raadinayo bani aadam uu iska gadayo isma qashiinayo istusayo ayaynu joognaa ilaahay xaqiiba la iska ilaaway illa man rahima rabbi ilaahay qof uu naxariistay mooyaan Soomaalida waxay tiraahdaa xaq ilaahay ninka eedla xan aadane waxba ma yeesho ku dadaal ilaahay xaqi inaad ka eedlaada xaqa ilaahay inaad ka saxan tahay jidka ilaahay inaad ku quman tahay ku dadaal dadka bani aadamka muslimkana si wanaagsan ula dhaqan oo akhlaaq iyo diin iyo gobonnimo dadka ula dhaqan wixii xun aadan jeclayn in lagugula dhaqmo dadka muslimka kula dhaqmi qawliya ficilba wixii wanaagsan aad jeceshay in lagugula dhaqmana dadka kula dhaqan hadaa dadka si wacan ula dhaqanto oo ixtiraamto ummadu way ku ixtiraamayaan si wacan bay kula dhaqmayaan hadaa ummadda ka xishoon weydo cid ka xishoonaysa adiguna ma jirto bishii ilaahay bilaha uu si gaara uga doortay cibaadadeeda soonta ee isagu isxajiyay baa soo socota nin nasiib la gaara عافيمات كجارة نبتقليه كجارة خير كجارة إمي ساقف أو بشيد النولابة عيد لقول هو حبل وسط عاوة كشرت إمي ساقط كشر عاوة قرنيس أو شعبان تيدي النولا إمي شعبان بلو جيد النولا وعاوة العصو قط كشر أتقرنيس إمي إلهي أدي النولبك بسوا جارسي سنة كدحدي سيدتك كهري egeeriyooday ilaahay kaama dhigin waa kan waad qoyantahay aniga idin la hadlay idinkaba wali waa nool nahay alxamdulillah nafti waa nagu jirtaa ajashiya saacadi ma iman maxaa ilaahay waqtiga kuugu furaya kuugu dheeraynaya inaad ka faa'iideysato inaad ilaahay ugu dhawaato inaad acmaal saalixaada samaysato weeyaan qofku waxa la saaxiibo kullamaan buu nabigu yiri saddex shay salawaatullaahi wa salaamu calayh shayga koowaad ee qofka kullamaan ee la socda waxa weeye maalkiisa wixii aad bixiso oo ilaahay hortii dhigato ilaahay rasuulkiisii wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam adaa iska leh oo ilaahay agtiibay ku taala waxaadan bixinay aad haysatee ku kaydsan ama ku yaalana adigu ma lihid shayga labaad ee qofka kullamaan waxaa la yiraahdaa waa qaraabadiisa iyo ehelkiisa islaamku ku dhex nool yahay way la socdaan oo way ku xidhan yihiin oo ku dhex nool yahay ilaa ay gaarsiiyaan albaabka ilaahay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam albaabka ilaahay waa kee waa qabriga ilaa ay gaarsiiyaan baab almalik qabriga markay ku geeyaan oo naftu ka baxdo kulli waa ka soo noqonaya wehelka iyo saaxiibka saddexaadna waa amalkaadi wuxuu ku oranayaa meeshaad gashidna waan kula gelayaa meeshaad ka baxdana waan ka baxayaa qabrigana wuu kula gelayaa markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofku wuxuu oranayaa saddexda shay midkaan ugu dadaalka liitay ee aanan aad ugu dadaali jirin waa ka godka ila gelaya amalkaygii ah amalka saalixa ah noloshaada inta ka dhiman ilaahay ballan la gal subhanahu wa ta'ala ilaahay wax isku ogaada noloshaada inta ka dhiman wax ku harsan ma ogid aniga idin la hadlaya habeenada iyo haray ma ogi idinka idin la hadlaya waxa idin harsan ma ogi qof is ogi ma jiro laakiin geeri baa soo socota ilaahay wax isku ogaada subhanahu wa ta'ala
inaad diintaada ku qumanaato ilaahay ku xidhnaato toosnaato ummaddu kaa nabad gasho naftooda iyo maalkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda ku dadaal waad mahadin doontaa maalintaad geeriyoonayso si wacan baa ilaahay adduunka kaaga ambabixinaya markaad ambabaxdana si wacan baa ilaahay kuu soo dhowayn doonaa iyo malaa'igtiisu iyo qabriga si wacan baad qabriga u seexan doontaa si wacan baa ilaahay kuu soo saari doonaa rasuulkii baad la kulmi doontaa waxaad ka cabbi doontaa xawdkiisii gacantiisii sharafta lahayd buu kugu waraabin doonaa shafaacadaysaad geli doontaa jannaduu kuu hogaamin doonaa miisaankaagaa cuslaan doona jannaad ku dambayn doontaa haddii kale waad shallaayi doontaa maalin aan shallayta waxba ku tari doonin as'alu allaha asalaama walcaafiya waa bishii qur-aanku soo degay toddobadii albaabee naarta ilaahay xidhaya maxaa ilaahay jannada u ballaqay oo udgoonkeedii iyo quruxdeedii iyo khanan qiimaheedii kala duwanaa iyo darajaadkeedii maxaa ilaahay u soo bandhigayaa inoo jeclaysiinaya carabkii rasuulka muxuu u soo mariyey oo waxyi ah ilaa yowmina haada uga hadlaya inuu ilaahay ku soo dhoweeyuu rabaa inuu dembigaaga dhaafuu rabaa waa ku jecel yahay alle subxaanahu wa tacaala inuu ku janneeyuu rabaa naar kulama rabo jannuu kula rabaa ka faa'iidayso alle ku leeyahay markaasuu caqli ku siiyey markaasuu caafimaad ku siiyey markaasuu diin ku siiyey markaasuu nebiga kuu soo diray calayhi salaatu wasalaam kitaabna kuu soo dejiyey soo gal jannadaydi waa laguu ballaqay shayaadiintii dadka dhibaysay buu kuu ballan qaaday inuu kaa xidhxidhayo habeenkaa u horraysuu ilaahay xidhxidhaya subxaanahu wa tacaala kuwii madaxa adkaayee bini aadamka ku sallidnaa kuwii masaa'ibta ah oo dhan baa lagaa xidhaya inaad jannada gasho oo fursadda alla ku siiyo markaasaa lagu war ninkii khayr doonayo warkii janno doonayo warkii dembi dhaaf doonayo soo dhowow kaalay wakhtigii jannada iyo dembi dhaafka iyo waa la joogaya jaaniskiisii warkii xumaan iyo shar wadow xilligu xilli xumaaneed maaha xilli shar maaha xilli dembi maaha xilli xumaan iyo xaaraan iyo macaasi maaha war gaabso war joog war cabso war xishood war alla u noqo war isqabo ayaa lagu leeyahay waa bishii qur-aanku soo degay waa bishii ilaahay kitaabka cadiimka hadiyadda qaaliga inoo soo dejiyey saddex meelood buu qur-aanka alla kaga tilmaamay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey mar dhexe fii suurati dukhaan aayadda saddexaad innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka waxaan qur-aankii soo dejinay habeen barakaysan mar saddexaad innaa anzalnaahu fii laylati alqadri waxaan soo dejinnay habeenka laylatulqadarka la yidhaahdo sida ilaahay kuugu dhigdhigayo fiiri subxaanahu wa tacaala waa bishii qur-aanka la akhrin lahaa waa bisha la rabo nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga iyo jibriil baa wada akhrin jiray qur-aanka ramadaan walba sanadkii geeridiisa u dambaysay ajashiisu soo dhoweyd calayhi salaatu wasalaam ee sanadka dambe aanu gaarayn ramadaantii alla ogaa 2 jeer bay jibriil qur-aanka dhammeeyeen haddaa qur-aanka alla uu ku baray hadduu qur-aanka alla ku baray qur-aanka aad u akhri ramadaanta aad u akhri waxaad isku daydaa ramadaantan soo socota weligaa intaad qaan gaadhay si aadan qur-aanka u akhrin ramadaantan u akhri waayo inaad dhiman doonto tagala gaari doontid wallahu aclam tan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wax badan dhex dhigo intaad dhammayn karto qur-aanka dhammee iska hololabay iska shololabay qur-aanku ma aha nebigu wuxuu yidhi laa hadan ka hada shicir ka hadi shicir sida gabayga loo dareeriyo looma dareeriyo qur-aanka si qur-aanku tadabbur liakhri aayaadkiisa cadaabka ilaahay ka magangal markaad marayso jannada iyo khayrka markaad marayso alla weydiiso ku cibro qaado tawxiidka iyo qisaska iyo qiimuhu qur-aanka sheekaynaya cabdullaahi bin cabbaas mascuud wuxuu oran jiray laa yakun hamu axadikum aakhiru suura qofkiin yaanu noqonin markuu qur-aanka akhrinayo suuradda dhammee yaanu is oran si muglew miisaan loo micnahaysa qur-aanka la dhuuxaya qur-aanka u akhri waa bishii deeqda iyo sadaqada oo nebigu ibnu cabbaas uu ka sheekaynaya isagoo rasuulku dadka ugu deeqsiisanaa uguna geesisanaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bisha ramadaan waa ka sii xag jiray si aanu bilaha kale wax u bixin jirin buu wax u bixin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabadu ku tilmaameen dad roob filanaya oo saxansaxadii roobku ku soo dhacday udgoonkeedii iyo qabowgeedii iyo neecawdeedii roobka ka horraysay intaanu roobku soo gaarin say roobka uga soo dheerayso rasuulku waa kala degdeg badnaa sadaqada iyo deeqda iyo wax bixinta bisha ramadaan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qof aan faqri ka baqin sideedii wax u bixin jiray nebigu sal alla alay wasalam qaraabada iyo riximka wixii aabba iyo hooyo xaggiisa ka soo jeega
حدد يا حجال وحي كل فاقن مسلمك وحد وحكود أنت بحي وحير هداد هيسة حتى بحي وحير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة استتري من النار عائشة النار توح إسكحتي ولو بشق التمرة تمر شاحد بعد بحسده وحيسكحتي النار والنبي صلى الله عليه وسلم وحد يسد لبح إلهي يقول له سبحانه إلهي وكو أركا واحد شايب كاغا كتشرو أقيح واحد بحين يسو أقيح وان هنتي رهي لقمها رديق دي خير كي صدقه قف صومن أفوريي أجر كيسو كلو ليه هيبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام وبشي عفسك وعائشة وحي تري هدانو قادو هبين كان إنو يهي هبين إلهي سبحانه وتعالى أماني ليلة القدر محاني لهذا واحد ترى هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وبشي عفسك اسكع في ضدك هذه سيسان أما يسكن أحسنتهين وظهر إسعفيه إسسامح رمضان أنت أنا يسوقلين إلهي إنك عفيه سو مربتت إلهي إنك سامح سو مربتت أضو عقدات قبا وأنت سوقف ما وضع هذا الله اسم السلام وحما أنت الشيء هدي الله يسوق قلكينه وأمعنا بدنا أنا تشرين هكذا قدين عفسك يرافد إلهي سبحانه وتعالى كوا إلهي النار تكحرين يسوق وقدره ولا كان مسلم كذا إسهيسان إسعافية هدود ديدو ترى وراء إسسامحن وإسعافينه هذه وحكوا لما تشران حق هدوك وقوم قيني حقي سإسكبيه بشان رمضان وبشي دعاء وبشي استجابة مكو إلهي آيات كرمضان تكسو شيكي وهكيي نحدو كوهكي مكو رمضان تكسو شيكي آيات كيدي وحب نحكي لي الله سبحانه وتعالى دعاء إيا بريضة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سداد ضمير وآياتها كتير سداد دبا إلهي بنقنسها سبحانه وتعالى وبشي دعوة قفك الصومني الدعاء سلم عليه بالنبي عليه الصلاة والسلام مركو أفريه إلهي إناد بريده سبحانه وتعالى أفرد كهر إناد إلهي آذو بريده مالنتا كختنته دعائي ورد قبل كوكو دعاء الله بريه مركا لا أدمنا هكون مشغول أفرده ساعة قالقة يكدافين بحبدة تمرتا هداد عنتو سوچيسو يا ربي ده إلهي قعمها قوليقو مو أوجد إنا رمضان دم يسان دونت مو أوجد تامت كدم بيسينا تسومي دونتو مالنتا ساسونتيو تشوكتا دبا قوسو خير إيا باهي أدون بعد ليدهي باهي آخرات ليدهي بقرآن وحبا واين وحولي بأكتي سبوحان بعد برييسا إلهي بري سبحانه وتعالى ومركاد إلهي برييسو بريادا هذا والد كائنات أدعيسو هكا إلاوي ومسلمين تائنات أدعيسو هكا إلاوي مداد إسهيساني مداد إذن إسهين با مسلم كأدعيه ودن إلهي دعاء هذا وأقبله سبحانه وتعالى وبشي صلاة تراويح دا لتكني مسلمين تا تراويح دا إمامك لتكو أفراد مركاد عنتو وحبدا هعنين إن يروا كوبا وقاتشدي رمضان تأت كتشبي سعيعون علوش هذا ووحبا يكون فارق تهي وكالي عشها هي تراويح وحي كيني ساينا الحمشو استاقي يا قرآن كدقيسي تراويح دا تكشديد قفك إمامك تراويح دا لقلا والله ما يستا انت مساجد كان لو تكنيو إلهي أكتي وحالو قريا عاو أردن صلاة عشاء إلى صلاة صبح أدون إلهي هرتاقنا وصلاة كنيا لقو قريا dadka qaar baa afar rakacadood intay la tukadaan ee yar iska baxa oo dibadda fadhiista qaar baa intay sideed la tukadaan imaamka saddexda dambe yiraahda suxuurtan raacsanaya ajarkaas oo dhan waad ka qadaysaa malihid laakiin markaad la bilowdo la dhamayso hadhow markaad suxuurta toosto haddaad lahayd salaatuleyl hore u tukan jirtay raatib ku ahaa xilligaa aad toostay tuko haddaadan hore u tukan jirin salaatuleyl xilligaa aad toostay intaad tukan kartid tuko witirkii un baan habeenka laba jeer la soo wada celinaynin suxuurtu waa barako oo nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku khayr kama zuurayaan maa cajalu lfitra wa akharu suxuur inta ay afurkana dedejinayaan suxuurtana dib u dhigayaan uu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa bishii dhaqaalaha la ilaalin lahaa innaguna waa bishii aynugu kharash bixinta badannahay weeye dad maantoo dhan soomanaa oo waxaanoo afura ah waxaanoo casho ah waxaanoo suxuura aqallada subaxii waxaad arkaysaa dusuud raashinoo lasoo qubayo oo la leeyahay riyaha iyo aryuhu ha cuneen dhaqaaluhu waa inuu miisaanaada bishan lagu ilaaliya haddaad afurto
وأفرى في عناد عنتكوبا علوش من يدركتو ماها صدح وقيبي والنبي عليه الصلاة والسلام قيب عناء قيب هواء إيو قيب بيأكدك والنبي عليه الصلاة والسلام صدح لا أقيب سعلوش هذا marka aad gurigaaga tagto hadaad koob shaah iyo koob biyo ku dhufato ama hadaad caano yar heli karto hadii kale iska seexo adoo cunno u baahan baad toosaysaa xilliga suxuuro markaad suxuuranayso caloosha dad baa buuxiya afka mariya isagoo neefsan la ayuu soo baxaya wuxuu isleeyahay 12 saacadood baad ka dambaysay war calooshu sahay male dumarkuna sahay male وحيرو كوبان بعد عنيسا كوجو فيلم بيسن كادو قبانيسا إلهي باكو بركين وحنا أقول في عنده نبي نعمة السحور المؤمن التمر مؤمن كوحو كسحور تمر باقو في عن هداد هيلي كرتي وحكى لا عنيسا كل ماني تمرتا أما كلي جيت كسحوره وحيابها مهم كابي كم يتهي بيشن أين أدرس حسوسين إنه بارك الله فيكم إلهي الدم بجينيكي والدكين بهدافو ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالأمن والإيمان والصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا غفار يا الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم نور قبورهم ووسع لحودهم يا ذا الجلال والإكرام وافتح لهم أبواب الجنة ليجدوا ريحها وريحانتها اللهم اجعل والدينا ممن يشربون حوض الحبيب شربة لا يظمؤون بعدها اللهم اجعلهم ممن يدخلون شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل والدينا ممن يستظلون تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين واجعلهم في أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم أنت الستير استر عيوبنا في الدنيا والآخرة اللهم أنت المحسن نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وميتة السوء وموت الفجأة يا ذا الجلال والإكرام